واتهي سيدات نشعتين با سيداتي لباتنكي جناي بشي تagtay labada waxa booqasho ku yimaaday dalka Talyaaniga gaar ahaan caasimadiisa Roma madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markaasi qayb ka ahaa madaxdii dawladda Afrika ee lagu qaabilay shirkii loogu yeeray shirka Talyaaniga iyo wadamada Afrika shirkaasi ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka siyaasadeed ee ka dhaxeeya dawladda Talyaaniga iyo wadamada Afrika isla mar ahaantaasna loo horumarin lahaa asayaatee waxaa intii uu madaxweynaha joogay booqashada ku joogay magaalada Roma la isla dhaxbaraya hadalhayn ah in ay suuragal tahay oo isla markaasna dawladda Talyaaniga xusuud ugu jirto in ay kulansiiso madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kuwaasoo la doonayo sida ay sheegayeen hadallada la isla dhaxmarayay in ay ka wada hadlaan muranka badeed ee soo dhaxgalay Soomaaliya iyo Itoobiya asaatee waxaa la sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka biyadiiday isagoo markaas sabab uga dhigay in aysan jirin wax muran ah oo kala dhaxeeya dalka Itoobiya waxaana uu sheegay Soomaaliya inay Soomaaliya leedahay badeedana aysan muran ku jirin Hashim Mustafa Aadan Hashim Cadde Hashim Roma